وقتها داوديال waxaad nagala socotaan telefishinka Somali Cable barta bulshada ee Facebook waxa hadda toos bilaabanaya shirka jaraa'id madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo maalmo ka dib dalka dib ugu soo laabtay iyadoo dalku marayo marxalad xasaasi ah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم روائنا كتعزيري المشاهد اللي قاوعي وقال شعب السعودية من بلد المشهد عشان بلادي كده بيكون الله نحرست انتقاء كبير وكده بالمكان إن شاء الله بدل خير روح كده نواد يدور النمو عدالة وكلمة كل السنة كنت أروح عادي أطلع روحنا الحل العام إذا أقول بين رمضان اللي وجه شغال كاسو قبل 5 سنة مسنة أسباب تيجون حكيت مثلا بقى يتمون في أبريل بدو كردنتي بعضي وبعضهم قبسنا يكتبوا من كان قبنا هاي أول ولا حقيقية يعني أفرت سنة بدور الشغل اسمه أقولي هاي أختي معارض إني مرة بقول إلا إن تبغون Soomaaliya dowladaha Soomaaliya taageero meel laga maarmaan ka doorashada waxaan aragnaa nasiib darro in lagu guuleysto waayo haddana ay xigto in dagaal dhaco oo dagaal sokeeya qofka loo fiiro aad aan waxaan nahay shacabka Soomaaliyeed maanta waxay sugayeen ma aha qodobkaas waxaan rabaa inaan wadago qodobka labaad waxa waaye xalku mar walba waa inuu siyaasi ah meeshan xal ciidan ma imaan karo waxa la isku haayana waa siyaasaduna waxay u baahan tahay iyadoo sharciga loo fiirinayo in loo helo hab nabadeed oo looga heshiiyo waxaanu ka dhashayna waa doorashooyinka marka waa in loo helaa sida ugu wanaagsan oo looga heshiin karo doorashooyinka dalkuna doorasho u geli karo waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada runtii marxalad adag mowqif wanaagsan oo sharaf la qaatay waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo mowqifkaas waxaan aaminsanahay meesha hadda wax joogaan iyo inaysan meeshaan aysan dhaafin inuu sabab weyn ku lahaa marka waxaan rabnaa aan ku bogaadinaynaa aan ku dhiirigelinaynaa in arrintaas la sii dardargeliyo sida ugu dhaqsiyaha badanna magaalada dhibaatada ka jirta sida looga qaadi lahay doorashada loo aadi lahay ee laga wada shaqeeyo maskaxda inaan ku hayno mar walba inaysan suurtagal ahayn in xaaladdu sidaan sii ahaato waa xaalad khatar oo runtii aan fiirsan karin loona baahan yahay in si wada jira looga wada shaqeeyo baarlamaanka waxaan rabaa inaan ugu baaqo muddo kordhinta ay sameeyaan waxay kaliftay dad badan inay dhintaan dad badan ay dhaawacmaan dad badan ay qaxaan dad ay burburto marka waxaan rajaynaynaa inay fahmeen wixii laga digaa inay sax ahaayeen shalay waa la soo doortay haddana fursaday leeyihin laakiin haddii dowladnimada meesha ka baxdo fursad ma laha wixii ammaanadii loo dhiibtana waa ogyahay marka waxaan leenahay mas-uuliyaddiina qaata dalkan waa inuu doorasho aado doorashadana waa in laga heshiiyo doorasho lagu kalsoon yahay lagu qanci karo waa inay ahaato ugu dambeyn waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo maadaama ay ramadaan tahay meesha caalamka oo runtii si wanaagsan u garab istaagtay go'aanada wanaagsan marxalado kala duwan soo baxayn gaar ahaan kuwa ugu dambeeyey waa uga mahadcelinaynaa sida shacabka Soomaaliyeed u garab istaageen siday mar walba diyaar u ahaayeen wixii karaankooda hiil iyo hoo aadan uga mahadcelinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa in nabadda uu noo adkeeyo dowladnimada noo adkeeyo Soomaaliya maanta dagaal uma baahna waxay u baahan tahay dowladnimaduna wax la wada leeyahay in laga wada shaqeeyo loo baahan yahay la ogolaado in la wada leeyahay.